waxaan ku bilaabaynaa Lidwin Captains oo ah professorad af Soomaali ku hadasha waxay qortay book ku saabsan haweenka Soomaaliyeed iyo maansida haweenka Soomaaliyeed waraysigii ladana waa kana su'aashu waras waxa weeye sidee magacaan naynaasta ladan yiraahdo lagu bixiyay walaal magaca ladan waxa i bixiyay nin Cabdisalaan Yaasiin la yiraahdo oo waqtigaas waxaan u maleynay inay ahayd 74 markaan London jaamacadda London aan wada joognay macalinkeenana uu ahaa macalin Guush ama Guush Andrzejewski la oran jiray Allah u naxariisto magaceygana Hollandaas waa Lidwin ama Lidwin Cabdisalaanna baa i bixiyay magaca ladan anigana waan jeclaaday waxaan arkay waa duco oo kale waxaan eri aamin ladan ma qabsanaya okay and buugaagtaada qortay imise way wallahi walaal waa badan yihiin laakiin waxaan sugaanta Soomaaliyeed gaar ahaan sugaanta dumarka ka qoray waa hal waxaan la qoraynaa gabadh Maryam Omar Ali la yiraahdo hada Toronto joogta iyada moogtay waqtigaas hadda waxaan gaaray heer aan fahmi kara aniga kaligeed laakiin waqtigaas Maryam ba i joogtay waa ila deganeed xagga Boston iyo iyada aad bay i qorisay magaceedana buugiga ku jira maxaa aan kugu khasbay ama aad yani ku soo jiitay inaad luqadda Soomaaliga wax ka barato wallahi walaal taasta nolosha waa yaab moogtahay marna waa yaabkii marna waa amankaag anigu markaan jaamacadda London markaan tagay waxaan intaanan tagin in yar waxaan bartay af Arbeed iyo moogtahay diraasaadka Islaam so laakiin Afrika baan u talagalay inaan wax ka barto gaar ahaan geesta Afrika laakiin in badan Sudan so marka rabay inaan magister inaan ka sameeyo London waxa la igu yiri af Arbeed ma qadan kartid way af Arbeed magister African Studies kuma jirto qof baan la taliyay oo mu'arrakh Belgian ahaa وخيري هذا لندن تكتت واحد جوجا نين كبري كرا أف سومالي جميل كلا لقى ما برنكرا أما موسكو أما لندن سومالي أنا موكا روج باتشوجن ما تجي كرا أنا هو قبض يرنا معناها so مركان ماجستير مركان لا إيش قصبيه إن كلا دورتو أفكا إن أفكا كدورتو waxaan Soomaaliya baan doortay waxa uu jeceshahay heesaha Soomaaliya waxaan jeclahay waxaan xafidsanahay isku mid maaha aniga toban miisaanka maansada sida loo tiriyo iyo aniga ma fahmi karo laakiin markaan guriga markaan joogay wiil dibadda baa wiil baa soo mariyay moogta isaga baskiil wata wax buu heesayana dabadeedna markaa maqlo sadli waxaan gartay taas heesta kabadda saas baan u baran karaa moogtahay degta way baran kartaa waxa maskaxda baran karin so waxaan aad u jeclaaday heesaas oo kale masalan geedba geedka u dheer laga garaacayo galool muday mulaaxniye baro baralaye baro buur shareere mamanta bakku helaye in badan waxaa guul helaya heesta tiraahda dhaqankaaga qabso dhaqankaaga hayso heshood moogta didibso marna waxaad helaysaa moogta hees jawaab ka bixiso moogtahay hadal saas oo kale masalan horta baro tacliintiyo buugiyo dhigaalko baro yaho dhibhaa elin dadka soo baraarugay so masalan heestaas beri hore waxaa jiray ninkii wuxuu heesayaa wuxuu yidhi beri hore waxaa jiray inaan baarah geeliyo faraskii baxdo wada yadad looga bixiyaa
bundukana la raacshaa wax bedelay kuwii hore isu bogan badh maqano baxdii ay ka dhalatiyo beelihii saywaane naabicisi dhaqankii sharcigii ka beedhoo diinta burburisay hablow maad isbadh qabataan iyadana waxay tiri baarahgeeliyo faras iyo boqonyara adhi hablihii lagu bedeli jiray diinteenu baraniyo ma banayn kitaabkuye boliqutiyaashii beecsan jiray haweenkiyo baxaadsorihii tegay maanta looma baahnee horta barow tacliintiyo buugiyo dhigaalko badooyahow dhib u haw elen dadkaas soo baara waraysigan oo ahaa waraysi aad u dheer intiisa kale waxa uu ku qoran yahay page-kan hoostiisa adiga ayaa ka arki doona waa ka soo gudbaynaa sida ogsoontiin